وحويان شلي بيان لقى أخريي وديرك هالدور وح بيان عن عيد وكيلني أو عيد عن سلوعين أو أننا نقوم نتشيء هالكاكا هالليسي ونقوم هنا مجد markaasoo tolahaan 12 dabbaan nahay soo isku maraaxsanin doorashada aynan gallo waxaan leenahay haddaan bulsho weyn taabar cafaan nahay horena mucaaridu ma ahayn maantana diyaar baan u nahay siyaasad kale iyo umuuro kale naguma jiraan doorashada diyaar baan u nahay nabadgelyaan diyaar ugu nahay dawladdan taageersan nahay wax alla wax inaga hor istaagay doorashada ma jirto dadka waxa kala sheegaya de haynoo yimaadaan oo tala aynu ku midaysan oo ay noola yimaadeen oo ay wax ku doonayaan ma hayno waxa weey waxaynu doonaynaa doorashada inaynu galno golaha qaranka ee baarlamaanka hana soo dhaafaan way ku fashilmeen kana ogolaan mayno markastoo doorasho la qabanayo inay yiraahdaan saami qaybsiga ay ku fadhiyaan waa kii hore loo qaatay waa kay 15 sano ku fadhiyeen waa kay doonayaan inay ku sii fadhiyaan kama yeelayno doorashada sideedan ku galaynaa saamigeedii horan ku galaynaa murashax baan anahay gobolkana annaga wax ka bedelayna jiilka cusub ee murashaxiinta ee baarlamaanka ayaa wax ka bedelaya maanta inagu maahin dad mucaarad lagu shaabadeeyo ama mucaarada waxaan halkan gobolka awdal waxaan ka nahay dad jira oo ku suntan xagga dawladda Soomaaliland mabda iyo ka dadahaanba aad iyo nabadgelyadana aad uga shaqeeya arrinka waa sida loo sheegay doorashada waa la gelayaa dadku ha ka qayb qaataan xilliga ay dawladdu qabanaysan iyada taqaan waa la gelayaa doorashada way dhacaysaa cidii siyaasadda ama u diyaar xildhibaanada haday deegaan noqoto iyo haday wakiil noqoto ay soo diyaariyaan wixii kale laga hadlayna saami qaybsiga si dhaba looga hadlay aqoonyahan baa ka hadlay wixii loo baahan yahay ee la taaban karo iyo laga hadliyo maaha dhowr inanoo la kordhinayo doorashada horta way dhacaysaa halkana waxa isku timida beelweyntii habar cafaan oo dhan waxaan leeyahay waxa ka maqan habar cafaan markaan arkay aad u eegay waddanka ay degto sanduuqyada ka maqan oo ku yar madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay salaadiintii guud iyo haddaan kuwii hoosabannahayba waxaan ka codsanaynaa in sanduuqyada gobollada iyo degmooyinka iyo tulooyinka wax alla waxaan ka haynaa ma jirto aynu yimaado sina noogu keena annaga salaanka bacdi marka gabay baa marayay gabay hawbisada doobiyey iyo dacawo xiinkeeda shaydaan dareen xuna galay habar dilaalkeeda duufaan kuleyl iyo qabow diiday labadiida dabayl mara firdada qaadatay iyo dulan banaanayn waxba yuuna gabaygu ila dulkana waxaan ku soo gooyay gabaygii daleeda aan dhigay dabankii waa kaadhe gabay baa marayay horta uu qaasha habar cafaan ee halkan isugu timiday maanta waxay diyaar u tahay inay doorashadii bilaa sabab ku galaan kolkaan bilaa sabab ay ku galayaan aan leeyahay 15 sano ayaa la isjiidanayay maanta oo ay doorashadii midha ka hadheena aan joojinno horta waa mid qalada mid diyaarka baryahan dhaweyta waxa ka socday doorashada gali mayno dib baa loo dhigi shalay baa baaq laga soo saaray horta baaq la isku ogyahay intii isku ogayday way isku ogtahay laakiin uqaasha habar cafaan ee maanta 12 ka halka fadhiday waxa biyo kama dhacbaana inay doorashadii gasho halkan 12 habar cafaan baa ku dhan dhalinyaro iyo oqaal iyo odayaal iyo siyaasiyiin dheer garad intaba سمعت قربان كده حيساي واحد كده دمبل قاعدتي واحد 12 habar cafaan kama horeey way halkay ka amba qaaday waa halka weey سمعت قربان كده حيسا dadkii hogaankii hortaba siyaasadda halkay ka dhambasheen halkan ahayd innagu halkii waa naga joognay inaan hor u socono halkeenii dhaafnaan horta ilaahay weydiisanaynaa tani yaa imika danta looga hadlayo gobolku hadal badan baa ka socda dhan walba uu socda hadal dadkuna de waxan uma dhanna
cid loo idmado ka hadlaysaana way jirtaa haba saatee dhammaan waxaan leeyahay intani habar cafaan waxay isku raacday foodkii maanta in la galo oo shuruud la'aantaa la isku raacay waa wax laga midaysan yahay dhammaanteed intan iyo inta ka maqaniba maadaama kolba dee geediga ummaddu dhanka u guurto ay u badan tahay haddii la raadinayo wax maqan yihiin dadku da isagoo midaysan buu raadiyaa mar hadduu jajab yimidayna xagga dawladdan un baan annagu taabacaynaa maanta tan kale hadal badan waa la soo dhameeyey wuxuu ku gebagaban yahay hadalkuna oon raacinayaa wixii dadku bila'aadanku leeyahay un baan leenahay gobolku wuxuu leeyahayna waan leenahay habar cafaanoo halkan ku dhanna waxay isku raacday inay doorashada ka qayb gasho iyo isku raacday gobolku wuxuu leeyahayna waan leenahay